isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Mukhtaar Jaamac oo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee gobolka Awdal ee la xiriirta cudurka coronavirus iyo sidoo kale waxa uu sheegay in 5 qof oo looga shakisan yahay cudurka coronavirus ay maqan yihiin deegaanadooda isaga oo arintan iyo arrimo kale ka hadlayna waxa uu yiri wixii positive waxna waa wax laga shakisan yahay wax inta laga qaaday dhigii laga helay boro maanta hal qof oo positive oo covid-19 qabo jira ma jiro 5 qof baa maqan oo gobolka 3 bakiya laba boorama ah mid waliba maanta la qaadi doono iyo mid saylaca marka anaga waxa noo maqan hadda maanta waxa wasaaradii waxba ilaamisay inaga ku wax Awdal ahaa ku jiray ma jirin ana way noo maqan waxa ay de cudurku astaama gaar u leeyahay oo kale ka duwan yahay inkastoo qof ay laga wada sameeyay kulli qofka aan ka geeyeen inuu qofkaas u dhaweeyay mushkilad kale way jirtaayo awoodda qofka sa lagu baari karaa way xadidantay marka qofka dhakhtarkiisa aad uga shaqeeyo yiraahdo qofkaas ilooba laga eego qofka ma maayna kulli taana waxaan kala sameeyay awoodana waxaan kala sameeyay wasaaradda iyo gobolada kala duwan ma kala sameeyay horta aga ma sha Allah intii ugu badnayd waxaan soo qaadnay ahadii kulli imika warwar badan oo agabka ka qabnaa ma jiro intaan soo qaadanay dagaalka waan ku gali karnaa waxyaalo badan oo kale oo yimid oo sugayo wasaaradda dhexe sugaysaa way jirtaa qolo Chinese hatta maanta dheeda anagu meesha joogna keentay laakiin inta maanta noo taale ee noogu jirta stoorka gobolka waa in runtii aad ugu laabsanahay halka aan ka horursanahay maanta ma jiro وشوري عبد الله هريال TV بورما.